sidoo kaleeto bandhiga maanta ka jiro beerta nabadda waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah shaaxi oo organic ah ama dabiici ah oo yaala waxyaabaha dalka yaala laga sameeyay oo aan kiimika lagu darin oo si farsameysan oo cajiib ah oo qurux badan loo diyaariyay sidoo kale waxaa ka mid ah saliid rayaan waxaa diyaariyeen gabdhaha ganacsatada hal abuurka le maasha Allah sidoo kale waxaa jira saliido kaleeto oo iyagana maasha Allah ah ayaa jiro run ahaantii abaayadii soo diyaarisay ganacsigan ayaa inoo sharixi doonto qaabka ay u soo diyaarisay iyo juhdiga iyo waqtiga ay gelisay insha Allah waxaan ku soo dhawow waan dhawahay aamino magacaygu waa Saare Xasan Muuse waa mulkiilaha maamulkinta cosmetics waxaan soo saaraa alaabo badan oo dabiici ah waxaa ka mid ah saliidan waa saliid qumbo organic ah oo soo saaray si organic ah soo saaraa waxaan lahayay wax aan ku daro ma jiraan waa qumbihi dalka ka soo baxay oo si fiican loo hagaajiyay waxaa ka mid ah alaabaha soo saara qadareenka dalka ayaa ku soo saaraa dibadda kama keeno waa kas qadareen waaye masha Allah anaa diyaariya alaabo badan ku samaysan yahay waxaa kaloo ka mid ah saliid rayaan waa saliid 12 geed ka samaysan oo waxyaabo badan lagu daray waxaa ka mid ah qumbaha looska iyo alaabo badan oo 12 geed ka samaysan tahay waana organic masha Allah wadanka ku soo saaray wax warshad kuma isticmaalin waxaa ka mid ah saliidan waxay ka samaysan tahay flaxseed ka samaysan tahay iyo dhagayare iyo alaabo badan oo timaha u fiican aad ay tiddu bixinaysaa waana qiimo jaban oo macquul ah waxaa ka mid ah alaabahan soo saaro shaah hargabka oo baay soo dhistay shaah hargabka wuxuu ka kooban yahay 7 geed uu fiican yahay maxaa la hargabka markuu qofka uu ka bixi waayo waxaa kaloo u fiican yahay koortag waaye hadduu hargabka soo socdo qofka kaleeto jirka maxaa laga sameeyay marka shaahan waxaa laga sameeyay shaahan geedo badan ilaa 7 geed waxaa ka mid ah dhagayare waxaa ka mid ah qarfi waxaa ka mid ah huruud waxaa ka mid ah joos alaabo badan oo ka samaysan yahay saliid rayaan waxay leedahay shaambada rayaan la hayadana waa la isku qaataa qofka labadan isku qaadanaya qofkii awoodo labadan isku qaadana qiimo macquul ah laga siinaya oo isla isticmaalaya marka sidaas ayaad ku ogaanaysaan tayadeedana feedback-geedana aad u fiican yahay waxaa kaloo haya haddii aan ku weydiiyo saliidahan marka aad sameynaysay qaab ceenka mashina oo isticmaashay qaab ceenka oo diyaarisay mashin ma isticmaalo waxaan isticmaalaa farsamo aniga gaar ah mashin ma isticmaalo alaabahayga guriga ku soo saaraa waxaan lahayay mustaqbalka waa rajeynaa inaan mashinay iyo waxyaabo casriga keensado laakiin hadda mashiinku ma isticmaalo guriga ayaan ku samaystaa waxaan kaloo ka mid ah alaabaha aan sameeyo gift baby hadda sambalka ma wado oo gift babygaan diyaariyaa back hospitalka diyaariyaa group ahaan waa u diyaariyaa baby keliis waa diyaariya hooyadii babygeeda waxaan kaloo haynaa cabaayadihii maamulka cosmetics maadaama qurxin yahay dharkii iyo alaabihii oo dhan waa haynaa kareemaha iyo alaabahaas iyagoo natural way soo socdaan insha Allah ka war bandhigan maanta aad soo bandhigteen ganacsiga see u aragtaa bandhigan walaa waxaan u arkaa inuu horumar badan sameynaayo oo dadkii wixii dalka laga soo saaray ay baranayaan alaabahoodii dalka looga soo saaray ay dibad laga keenin wax kiimika lagu dan ay isticmaalayaan gabdhaha laabuurada dhan waxay u tahay dhiirigelin inay bandhig noocan oo kala qabsadaan inay maxaan ku dhahaa dadkan ay ku dhiirigeliyaan in wadankooda wixii ka soo baxay isticmaalaan ayagoo kiimika loogu darin sida waxaan leeyahay dadka soo dhawaada ka war markaad samaynayso wax caqabada ma kala kulantay wallahi hadda wax caqabada oo kala kulma ma jiraan inkastoo hadda wax markii la sameynayo dib badan laga maro haddana caqabad gaar ah oo hadda dhibtaa ma aan arkin alxamdulillah ilaahay uu fududeeyay ka war sidee u fahansan yihiin gabdhaha dhalinyarada ee saliidahan iyo waxaan ay u isticmaalaan wallahi hadda dadka igu xiran oo maamulka cosmetics ku xiran oo saliidaha iga isticmaalo feedback-gooda aad u fiican ma sha Allah qof oo ka cabanaysa ma arkin qofka marka saliida siiyo feedback waa weydiiyaa saliida maxaa dhib oo kala kulantay maxay ku tartay maxaa faa'iido oo ka heshay intaas waa weydiiyaa dadkana feedback fiican alxamdulillah ay soo celiyaan wax dhibaato weli ma arkin shaambooyinka kale maxaad ka samaysaa shaambadoo kale to alaabo badan laga sameeyaa laakiin alaabta dibadda laga keenaa laakiin dalkan ku hagaajiya wax organic laga sameeyaa oo dalka laakiin saliida waxyaabaha dalka ka soo baxay saliida laakiin wax dalka ka soo baxay laakiin shaambada waxa lagu daray dalka dibadda laga ka waran mustaqbalka ee rajadaada intee la egtahay mustaqbalka rajadayda waxay tahay in aan horumar intaan ka dheer gaaro oo dal iyo dibadba aan gaarsiin karo kambaniga insha Allah waa ku rajaynaynaa inuu ganacsigaaga ballaarto insha Allah haddii ilaahay idmo run ahaantii waxyaabaha ay soo baysaaro waxa aan aad uga helay waxay tahay waxa la dhaho shaaha hargabka
shaaha hargabka saa u jeedaanba magaciisa ayaa maxaa tiraahdaa ka dareemi karnaa shaaha hargabka run ahaantii waa wax cajiiba waa wax qurux badan yacni shaaxii oo shiidan maxaa tiraahdaa oo diyaarsan oo qiimihiisana uu jaban yahay oo cajiib ah aad u jeedaan dhagayarihii waadkaas aad arkaysaan qorfihii oo kaleeta arkaysaan haddana weelka uu ku jiro oo seef ah qofkii ilmo haysto oo kale waa caag yacni kama jabayo haddii dhulka uu ku dhaco xataa waa wax qurux badan shaaxii heelkii iyo mooyihii la tumi jiray oo shanqadhiisii reeraha dariska ay maqli jireen waa laga reesanayaa insha allah isagoo diyaarsan oo habaysan kareemkii oo gaashii gacmaha la marsanayay ayaa ka mid ah run ahaantii way dadaaleen si qurux badan ayay u dadaaleen saliidahan aad u jeedaan iyo shaambooyinkani ayaga ayaa soo saaray guryahooda ayay ku sameeyeen laguma soo saarin warshad laguma soo saarin maxaa tirahdaa mashiino casri ah laguma soo saarin waa wax juhdi la geliyey tusaale ahaan saliidoo kaleeto loosaa ku jiro waxaa ku jiro qumbihii waddankeena oo organic ah oo originaal ah haddii aan dhahno oo beeraheenii ka soo baxay run ahaantii haddii shalay saliido dhoof noogu imaan jireen ama hindiya ee noogu faani jirtay waxyaabo oo herbal ah ee noo soo xayeysiin jireen ama musalsalaadka lagu soo dari jiray run ahaantii Soomaalidu waxay iska jecel yihiin wax dibadda iska jecel yihiin Soomaalida xataa ma dadkoo dhan iska jecel badankooda Soomaalida dhan ma dadka badankooda laakiin waxa cajiib ah wax gabar walaashaada oo Soomaaliyeed ay sameysay oo juhdi ay soo gelisay oo ay ku soo dadaashay in aad ka dooratid gabar kaleeto oo waddan kale u dhalatay fikirkeeda run ahaantii waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaalida qaasatan reer Muqdisho imaada ganacsatada yaryar hal dhiirigeliyo يعني سي ونقض wax aad u balaaran ay bari noqdaan warshado waaweyn oo jiilka soo korayana maxaatirada ka faa'iideysan karaan hadii ay dhar tahay hadii ay shaambo tahay hadii ay saliid tahay run ahaantii codkay inuu gaaban yahay laga yaabaa sababtoo dadka dhan marka soo dhawaada sheer gareey barnaamijka